wasaaradda howleed way tira badan yihiin waxay wasaaradda sidoo kale ay dejisaa siyaasadaha dhaqaale oo waddanka lagu maamulo waxay xiriiro la yeelataa caalamka intiisa kale si waddanku u noqdo mid ka mid ah bulshada caalamka marka haddaan soo koobo dhinaca maamulka maaliyadda sanadkii 2015 waxaan hirgelinay barnaamij la yiraahdo FMIS oo u istaagan Somali Financial Management Information Systemkaasi waa system lacagta canshuuraha la qabto ama lacagaha deeqaha waddanka la siiyo oo meesha ay dawladdu soo maraan dollar kasta ama shilin kasta marka wuxuu noqonayaa mid lagu qabto systemkaasi haddii hal mar lagu qabto systemkaasina lacagtaasi meesha ku baxdo raacay leedahay marka waana laga xisaabtami karaa waxaan kaloo ku soo kordhinay in saddexdii biloodba aan maaragtay website-ka wasaaradda maaliyadda aan ku soo daabacno wixii dakhli qarashna soo galay taasoo aan xataa la wadaagno golaha wasiirada iyo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka marka taas macnaheedu wuxuu yahay inaan ku soo ziyaadanay hufnaan iyo cadcadayn oo qaabka loo maareeyo maaliyadda warbixinada aynu helayno waxaa ka mid ah in dowladda Sacuudiga lacag 50 milyan oo 20 ka mid ah kabis maaliyadeed ah ay dowladda Soomaaliya u ballan qaaday xagee marayaan lacagahaas waa run safaradii aan ku aadnay waddanka Sacuudiga oo boqorka maaragtay boqortooyada Sacuudi Arabiya uu nagu marti qaaday oo wafdigaas oo madaxweynaha uu hogaaminayay wafdiga markaas waxaan ka mid ahaa waxaan codsanay in laga taageero dhinaca miisaaniyadda codsigaasna way naga aqbaleen waqtigaasi ilaa iyo hadda waxay noo ballan qaadeen inayna siinayaan 50 milyan 50kaasoo 30 milyan ka mid ah weli aysan soo gaarin 20 milyan oo loogu talagalay in lagu bixiyo yani lacagihii nagu baaqday 2015kana wayna soo gaartay si hufanna waa u maamulayna oo cadaan ah waxaa socda dhanka kale bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda oo laba bil la isugu qabtay maxaa xilligan ku soo beegay iyagoo shaqaalaha bilooyin badan oo deyna ay lahaayeen mise ku jiraan ciidanku oo cabasho badan mushaaraadkooda ay ka taagneed muddooyinka dambe lacagaha hadda aan bixinayno waa lacagihii aan ka helnay kabka oo Sacuudigana siiyay taas ayaa keentay hadda inaan laba bil aan soo qabanno oo lacagihii oo baarlamaanka iyo ciidamadiina aan bixino si tartiib aan u bixino saa la socotaan lacagaha waxaa lagu bixiyaa bangiga dhexe marka lacagaha la bixinayo waa taqaanaa xogaha maaragtay dadka isku badan marka si hadba sidii xaalad ay tahay ayaan wax ku bixinaynaa dhinaca shaqaalaha rayidka kaliya ma ahan waxyaalaha aan bixinay waxaa ka mid ah mushaaraadka ciidamada ka mid ah marka ciidamada la yiraahdo dadka badanaa waxay u fasirtaan military kaliya laakiin ciidamada waxaa ku jira booliiska ku jira nabad sugidda ku jirta asluubta ku jirta oo afartaas ciidan raashin howlgalo iyo mushaaraad intaba ay naga rabaan waana bixinaa laakiin tan militariga xogaa dadka waxaysan ka dhaadhacsaneen waxaa jira nidaam oo lacagooda loo bixiyo hal meel lagama wada bixiyo isku marna lama wada bixiyo hadba qayb ayaa loo bixiyaa marka iyagana sidoo saas oo kale mushaaraadkooda waa la wadaa waa la bixinayaa mushaaraadka cabashooyin fara badan ka taagneed shaqaalaha dowladda oo aan badnayn oo 4000 iyo shaqaalaha rayidka ah aan 5000 aad uga yar dowladda inta ay la daalaadhaceysay ka hor lacagta Sacuudiga si kale loo maareeyo ma la waayo lacagaha oo dowladda soo gasho weligood Soomaaliya waa la taageeri jiray sanad kastaba Soomaaliya waxay heli jirtay budget support ama taakulayn miisaaniyad ayaa heli jirtay 2015 waxay kaga gedsan tahay sanadihii hore sanadkaasi lama helin kabkii miisaaniyadeed ee la heli jiray lama helin laakiin haddii mar kastaba saas ahaan lahayd buuqan wuu sii taagnaan lahaa marka hadda waxaan ku tala jirnaa inaan annaga isku filnaano marka taas oo hadda aan bilownay oo sanadkii hore aan ka jaan qaadnay in dakhliga gudaha xoog la saaro si loo gaaro isku filnaansho loo gaaro warbixinadii ugu dambeeyay ee hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay Soomaaliya dhaqaalaheeda uga hadlayeen
ammaan ayay kala dul dhaceen dowladda soomaaliya iyo nidaamkeeda maaliyadeed sanadkii u dambeeyey. Ka wasaarad ahaan adigoo hawshan hogaaminayay maxaad ku kasbateen aad isleedihiin ammaantan? wallaahi saa la socota soomaaliya khadka international community ama maaragtay caalamka way ka maqneen, annaga muddaan ka maqneen. sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaa socday marka dadaalo oo lagu habeynayo maaliyadda waddanka. waxaan kaloo idina aan ku guulaysanay inaan xiriir hoose aan la yeelano hay-adaha lacagaha adduunka sida IMF ha noqoto ama bangiga adduunka oo World Bank ha noqdo ama bangiga oo maaragtay horumarinta Africa ha noqdo ama bangiga horumarinta Islaamka ha noqdo. hay-adahaasi hadda si dhow ayaan u wada shaqeynaa, taakulayna wayna siiyaan si anaga maamulkeena aan u xoojino. Soomaaliya ma jiri jirin dhowr sano ka hor hanti dhowr ma jiri jirin. waxay ka mid tahay hay-adaha ugu muhiimsan ee la sameeyay ka mid tahay. xisaabiyo guud oo shaqeynayo oo hadda u shaqeynayeen dhowr sano ka hor ma jiri jirin. yacni ma ahan wax hadda bilowday ma ahan, laakiin waxaan ka hadlaynaa 5 sano ka hor 3 sano ka hor hay-adahaasi ma jiri jirin. miisaaniyadda hadda aan ku shaqeyno waa miisaaniyaddii afraad ee dowladdu sameyso. ka hor 4 sano ka hor miisaaniyad ma jiri jirin. marka hadda waxay arkeen in qaabka aan u maamulno maaliyaddeena maalin ka dambeysa inay soo kobcayso, khaasatan haddana wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe howlihii loo idmaday oo ay ka soo baxayaan ayay arkeen. taas ayaa keentay marka inay kalsooni ay ku qabaan systemka aan dejinay iyo habraaca maaliyadeed aan sameynay. waxaa jira unidyo World Bankiga ay idiin abuureen, sanduuqa dhaqaalaha Soomaaliya, dhammaan wasaaradda hoos yimaada. unidyadaas iyo dadkaas laydiin shaqaaleysiiyey qayb ma ka yihiin horumarka dhanka dhaqaalaha oo ay wasaaraddu sameynayso? runtii aad iyo aad, sababta waxaa waaye waddanka waa ogtahay 22 sano burburaa ka dhacay. shacabka Soomaaliyeed uma helin fursad waxbarasho iyo meel ay khibradooda ku dhistaan. marka waxaa jira baahi weyn in la helo shaqaale tayo leh oo khibrad leh oo maaragtay hawshooda la jaan qaadi karta caalamka intiisa kale. marka taas waxaa noo suurageliyey mashaariic oo wasaaradda laga fuliyey oo midka ugu weyn la yidhaahdo BFM oo ah Public Financial Management oo ah maamulka maareynta maaliyadda ah, kaasoo noo suurageliyey in shaqaale tayo leh gudaha iyo dibaddaba aan kasoo qorano, kuwaasoo markaa gacanta ku dhigay howlo loo baahnaa in la qabto oo ay ka mid yihiin iibka qaranka, ay ka mid yihiin maareynta shaqaalaha ha noqoto, maareynta qandaraasyada ha noqoto. marka kuwaas waxay noqdeen kuwo halbowle u ah ama lafdhawar u ah in maaragtay systemkii wasaaradda iyo kii xukuumaddaba uu maaragtay saldhigto. sharciga iibka qaranka ee baarlamaanku uu dhowaan mariyey waxaa qayb ka ah wax usoo iibinta xukuumadda ama dowladda oo dhan, waxa afka qalaad lagu yiraahdo tender boardka. dhisidiisu xaggee maraysaa? saa la socotid sharciga waxaa la ansixiyey bishii December hadda soo dhaafnay. sharciga weli ma dhaqangelin oo hadda waxaan sugaynaa inuu maaragtay madaxweynaha uu saxiixo, taasoon rajaynayna in dhowaanahan ay dhici doonto. waxaan kaloo dejinay qorshe sanadeed oo aan ugu talagalnay qaabkii lagu dhaqangelin lahaa sharcigaas cusub, oo ah in la abuuro gole ama board hadhow dowladda mas-uul uga noqonaya wax kasta oo qandaraasyo ah oo ay dowladda bixiso. hore way jiri jirtay, waqtigii dowladda way jiri jirtay, laakiin haddana waa mid cusub oo u baahan in la abuuro. kaasna abuuridiisa iyo dhaqangalkiisa haddaan hawshiisan ku jirnaa. sanadkan waxaad ugu magac darteen sanadka dakhli ururinta. macnaheedu waa in dowladdu ay canshuur badan ay ururin doonto sanadkan si miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dowladdaba ay wax uga tarto. iyadoo taa jirto haddana canshuurihii gaar ahaan markii magaalada muqdisho laga hadlayo $20 ahaa laga qaadayay meheradaha ganacsiga, wasaaraddu waa ay joojisay. waa maxay sababtu? maxaase lagu bedeli doonaa? arrintaas horaan u sharaxnay. lacagtaas $20 oo lacag go-an ah
ma ahayn lacag oo loogu talagalay inay mustaqbalka sii socoto. markii lasoo bandhigayay waxaa loogu talagalay shacabka oo 22 sano aan canshuur laga qaadin in canshuurta lagu baro ayaa loogu talagalay. ma ahayn mid sharciyadeeda ay hagaagsan tahay, ma ahayn. waxay ahayd mid xal loo arkay oo maaragtay loogu naxariisanayo shacabka at that time. laakiin hadda waa ka gudubnay. waxaan usoo noqonay sharcigii oo golaha wasiiradana maaragtay maalin dhoweyd uu ansixiyey tariifooyinkii. marka hadda waxaan dabaqayno 2016 waa tariifooyinkii ama maaragtay sharciyadii canshuuraha lagu qaadayay oo dhisan ayaan hadda hirgelinaynaa si qofka wax looga qaada ay noqdaan wax sharciyad ku beesgaraysan oo cadaaladna ku dhisan. waxaad dhowaan kulan yeelateen wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada. tariifooyinkan iyo in canshuuruhu ay noqdaan kuwa iswaafaqsan oo aan gobol keliya sida muqdisho kale aan laga ururin uun maxaa idinkaga hirgalay? runtii kulankaasi waxaa ka horeeyay kulan kale oo aan Nairobi aan ku qabsanay. gadaashaana hadda mar dhow waa kulanay wasiirada maaliyadda ee maaragtay dowlad goboleedyada iyo aniga. waxaan ku heshiinay in wadanka uu wadan yahay, nidaamka wadankana la mideeyo oo lasla jaan qaado, ama ha noqoto qaabka miisaaniyadda loo dejinayo, ha noqoto qaabka dakhliga loo ururinayo, ha noqoto ama qaabka maaragtay siyaasadda oo maaragtay dhaqaalaha loo wajaha, ha noqoto. marka waxyaalaha ugu horeey aan ku tashanay inaan sameyno waxay tahay in la mideeyo canshuuraha la qaado ama tariifooyinkooda, khaas lagana bilaabo dekedaha laga bilaabo. marka alaabta kasoo degta Kismaayo iyo tan Muqdisho kasoo degtay, tan Kismaayo tan Boosaaso kasoo degta inay noqdaan kuwo isku jaango-an, inay noqdaan oo qofka ganacsadaha ah oo u leeyahay xaq markaa inuu meeshuu doono kasoo dejisto oo aysan jirin wax kala sareyn ah, aysan jirin. sida oo kale badeecada jidka maraysa xataa in iyadana laga tashado qaabkii loo maareyn lahaa, oo qof ganacsadaha oo deked laga soo canshuuray inaan haddana dhulkii dhowr jeer kale aanan lagu canshuurin. arrintaasi waxaan u sameynay guddi iswaafajiya tariifooyinkaasi oo hadda hooshooda biloway. marka waxaan rajaynaynaa in dhowaan arrintaasi aan guul ka keeni doono. miisaaniyadda haddii aynu dib ugu laabano, sanadkii hore boqolkiiba 51 ka mida miisaaniyadda wuxuu ahaa waxaa lagu tashanaa deeqbixiyaal, lacagtiina maysan soo xiroonin. shaqo badan oo dowladda ay lahaydna dib ayay u dhigtay oo miisaaniyad la-aan darteed. sanadkan maxaa idinkaga qorshaysan? maxaa laga bedelay miisaaniyaddii hore? ku tiirsanaanta dibaddana intee la eg tahay? sanadkan runtii waxaan sameynay in dakhli kasta aan soo gelayo inaan dul istaagno oo aan hubino in dakhligaasi uu yahay mid la heli karay iyo in mid aan la heli karin. tii waa ku guuleysanay oo dakhliga gudaha waa dul istaagnay. waxaana arrintaasi nagala shaqeeyey qolooyinka IMF-ta oo runtii ku qiimeeya wadan kastaba miisaaniyadda uu dejiyo inay tahay mid khiyaali ah iyo mid dhabta u dhow. marka teena waxaa loo arkay in mid aad iyo aad dhabta u dhow. dhinaca isku halaynta kabka dowladaha nasiiya, runtii sanadkii hore wixii aan ku talagalay saa sheegtay ma helin. sanadkan waxaan qoondeynay ilaa iyo 30 milyan inaan dibadda aan ka helayno. 30kaas milyan 20 milyan ka mid ah hadda waa helnay. marka taas waxaa ku tusaysaa in yacni qiyaasteena sanadkan uu aad u fiicnaa. marka 10ka kalena waxaan rajaynaynaa iyada inaan helno. mana ahan lacag aada u ballaaran oo saameyn weyn ay ku yeelanayso hirgelinta miisaaniyadda. inta badan waxaan isku halaynaa hadda dakhligeena gudaha insha allah. si ka duwan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka warbixinadii ay Soomaaliya ka qoreen oo ay ku ammaaneen nidaamkeeda maaliyadeed, ururka daahfurnaanta caalamiga ah Transparency International la yiraahdo warbixintii 2015 uu soo saaray Soomaaliya musuqmaasuqa waxay ka gashay kaalinta koowaad, ama wadanka waqooyiga Kuuriya kula jirtaa kaalinta koowaad. aragtidiina sideed ku aqbasheen warbixintan ay hay-adda soo saartay? sababahana maxay noqon karaan?
waa run meeshaan kaga jirno liiskaasi waa meel aada u hooseysa laakiin waxaa isweydiin lahay hay-addaasi qaabka ay u qiimeyso wadamada ma ahan wax oo la dhihi karo wadankaas intaasuu leeyahay intaasa ka maqan ma ah waxaa lagu cabira waxa la yidhahda perception waxa fikirka soomaaliya laga qabo waxa lagu cabiro liiskaasi waa fikirka soomaaliya laga qabo saa la socotay annaga wadankeena wadan ahaanba looma aqoonsaneen wadan burburay aan waxba ka jirin ayaan loo aqoonsanaa haddaan soo kabsanay haddaan dowladnimadeeni iyo dadnimadeeni iyo kulligood haddaan la soo noqonay hay-adaheena dowladeed hadday dhismooda ku socdaan waxyaalaha marka aan ku talagalnay inaan sameyno si liiskaasi meesha aan kaga jirno aan uga soo baxno waxaa ka mid ah arrin madaxweynaha uu ka dhawaajiyey bishii luulio oo sanadka lasoo dhaafay oo lagu magacaabo open government initiative oo micnaheedu yahay daahfurnaanta dowladnimo oo ah waa waxyaalaha laisku qiimeeya adduunka marka corruptionka laga hadlayo in dowladda shaqadeeda iyo macluumaadkeeda shacabka ay diyaar u yihiin inay ka helaan si sahlan ay u helaan oo xaqna ay u leeyihiin maxaa ka mid ah kasoo qaad qof ganacsataa wuxuu rabaa inuu shirkad furto wuxuu xaq u leeyahay in loo sheego shirkadaasi lacagta ku kacayso inuu furto oo isagoona xafiiskiiba teginba uu meelaha kale ka ogaan karo ayna yihiin wax aada u furan sidoo kale canshuur markaan qaadayno in canshuuraadkaas macluumaadkooda qofka oo soomaaliga ah oo muwaatinka ah uu xaq u leeyahay inuu meel oo dowlad ka mid ah intuu tago uu macluumaadkaas kasoo heli karo aysan qasab ku ahayn qofka canshuurta ka qaadaya keliya inuu sheego waxaa ka mid ah qandaraasyada la bixiyo oo kale in dowladda ay soo cilaamiso oo ay soo daabacdo marka la bixiyana marka waxyaalahaas dhan waxay qayb ka yihiin daahfurnaanta dowladnimo waana barnaamij cusub oo hadda maaragtay aan bilownay shirka wareysiga ka hor shirka aan ku jirin arrintaas khuseeyey bisha February dhexdeedana waa soo bandhigi doonaa waa meel haddana maaragtay bulshada rayidka iyagana ay ku leeyihiin saameyn ay ku leeyihiin oo iyagana maaragtay cod ay ku leeyihiin sidii dowladda loola xisaabtami inkastoo hawshaada ama hawsha kaaga qaybsan xukuumaddu ay tahay maaliyad haddana dadku waxay isweydiinayaan canshuuraha iminka la qaado adeegyo u dhigmo dowladdu dadku ma u soo celisaa runtii adeegyada aan ka hadlayna waxay tahay adeegyo la taaban karo la arki karo iyo adeegyo aan la taaban karin dowladdu waa dowlad hadda uun yani ugub ah had cusub oo ay soo korayso waxaa hadda ka dhawaajisay 4,000 oo shaqaale ah 4,000 oo shaqaale ah lacagtii canshuurta la qaaday ayaa lagu siinayaa mushaar yani waa loo jeedaa marka lacagtaasi meesha ka timidna waa loo jeedaa inay canshuur tahay shaqaalihii dowladda u shaqaynayayna in la siina waa loo jeedaa sida oo kale raashinka la siiyo ciidamada iyo mushaarka la siiyo ciidamada waa lacagtii canshuurta lasoo qaaday haddaan ka hadlayno arrimaha oo social serviceka la yidhaahdo adeega bulshada oo kale sida caafimaadka iyo waxbarashada waa meelaha oo liita hadda oo miisaaniyadda aan weli awood u lahayn inay ka wargarayso laakiin waxaa xusid mudan hadda wadanka weli wuxuu ku dhisan yahay taageero caalami ku dhisan yahay taageero caalami la siiyo lacagta ugu badan waxay gashaa caafimaadkay gashaa lacagta ugu badan caafimaadkay gashaa waxaa soo raaca waxbarashada soo raaca marka lacag aada u tiro badan ayaa sectors la geliyaa laakiin xukuumaddii ma geliso sababta xukuumadda weli awoodeeda dhaqaale ma gaarsiisana sida oo kale in jidadka la dhiso buundooyinka la dhiso maaragtay iskuulaadka la dhiso waxaas dhan waa wax loo baahan yahay in dowladda hadhow ay ka wargarayso wax hadda aan arrintaasi u suuragalayn waxaa ah canshuurtii waxaa laga qaada weli hal magaalo keliya ayaa laga qaadaa canshuurtii ma ahan mid baahsan oo wadanka dhaqaalihiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa maaragtay kaafinaysa ma ahan haddii dib aan u raacno waqtigii oo dowladnimada aan haysanay intaan maaragtay dagaalo soka aysan ugu dhicin 72% dakhliga dowladda wuxuu ka soo geli jiray 3 meelood oo ah beeraha kalluumaysiga iyo xoolaha haddana waa ujeedaa 3daas meelood inay weli ay u baahan yihiin in lasoo kobciyo marka dowladdu weli ma gaarin heerkii iyada dakhligeeda ay ku kaafin lahayd ama ku dabooli lahayd baahiyaha jira waa la soconaa baahi badan inay jiraan laakiin shacabka waxaan u sheegaynaa maalin ka dambeysa
inaan kusii dhawaanayno jidkaasi. gabagabadii sanadka xukuumaddan ama xilliga xukuumadda ka harsan waxaa lagu yaqaanaa ama waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo ah in shaqada dowladda ay si u daciifto, si ay u liidato sababo la xiriira ololaha iyo qof walba oo mas-uulah inuu ka fikiro soo laabashadiisa. wasaaraddaada ma saameyn doontaa, maxaase bulshada u ballan qaadaysaa? horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan shacabka u sheego wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha dowladda intooda badanba inay soo gaareen heer aysan saameyn weyn ku yeelanaynin siyaasadda. tusaale aan usoo qaadno dowladdan dowladdii ka horeysay kala guurka marka la garayay waa la socoteen in isqabsi siyaasadeed dheer uu jiray. wasaaradda ma saameyn arrintaasi, shaqadeeda si toosay u socotay. ani waxaan la wareegay wasaaraddan oo waxeeda ay u hagaagsan yihiin oo shaqaaleeda shaqeynayo oo waxba aan ka maqlan ayaan la wareegay. shaqaalaha hadda inta joogana waa shaqaalo professionals ah, qaarkood muddo badan joogay, mana ahan dad siyaasiyiina ma ahan. marka waxaan ku kalsoonahay in isbeddel kastoo siyaasadeedoo jiro in maaragtay saameyn weyn aysan ku yeelanayn yani habsami socodka shaqada wasaaradda.